ciidanka waxa ay dagaalka uga soo jabaan waa amarada kala duwan ee la siinayo waxa sidaas yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wadana ra'iisul wasaare talada ciidanka dib intaad ugu noqotaan ha lagu xisaabtamo waxa jabinaya waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waxa la isku khaldayo ciidannimada iyo siyaasadda soo dhawaada saaxiibayaal xogtan ayaan doonay inaan halkan idin kula wadaago waxaana Cumar Guux hadii uu muuqaalka ku soo gaaray si shirkare oo saaxiibada la sii wadaag madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland sidoo kalena uu ku heliyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xubno kale oo ka socda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kulamo wada jir ah waxa ay halkaas kula qaadanayaan saraakiisha militariga Soomaaliya waxyaabaha sida weyn looga hadlayo waxa kamid ah howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha shabaab ee ka socda deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedkaasi si gaar ah gobolka Jubbada Hoose oo meelo badan oo dagaalamayaasha shabaab ku sugnaayeen laga saaray howlgalkana uu sii socdo Axmed Madoobe waxa uu si cad u sheegay in ciidamadu inta badan ku soo jaba dagaaladu ay siiyaan saraakiishooda amaro kala duwan oo iskhilaafsan waxaana uu sheegay guushii ballaarneed ee ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland kuwa Birjeex ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed dhamaantoodba ay ahaayeen hal talis iyo sidoo kale hal hadaf oo ay lahaayeen oo ay kaga guuleysteen dagaalamayaasha shabaab oo deegaanada Buule Xaaji Miido iyo meelo kale oo dhowr ah oo Baarsan Guuni ay kamid tahay dhibaatooyin xoogan ama jab xoogan loogu gaarsiiyay Axmed Madoobe waxa uu sheegay Jubbaland in uu ka jiro hal talis oo ciidan Jubbaland waxa ay sheegtay amba uu sheegay in ay leedahay ciidamo kala duwan oo ay ugu horeeyaan ciidanka madaxtooyada daraawiishta Birjeex iyo ciidamo kale oo nabad sugid iyo booliis isugu jira dhamaantoodna waxa la sheegay marka ay howlgalayaan inay ku howlgalaan hal amar oo ka soo baxa ama hal qorshe oo ay ku howlgalaan taasi ayaana keentay sida uu sheegay Axmed Madoobe dagaalada lagu guuleysto ee dagaalamayaasha shabaabku inta badan lagu la galo gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka uu fariin ahaan ugu diray in ciidamada inta dib loogu laabto la saxo hogaankooda fariimaha la dirayo ama digniinaha la siinayana ay ka yimaadaan hal fadhi oo ah taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in dagaalada ciidamada inta badan ay ku soo jabaan ay keento amarada kala duwan ee saraakiisha ay bixinayaan ee khilaafyada kala duwan keenaya waxana uu tilmaamay in uusan jiri lahayn ciidan soo jaba oo dagaal gala laakiin hadii hogaankooda uu qaldan yahay amaba uu qaldamo dhamaantood ciidamadu ay dareemi karaan niyad jab iyo inay ka soo baxaan furimaha dagaalka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ma shaacinin sababta keentay in ciidamo dhawaan la sheegay inay ka soo baxeen furimaha dagaal ee dowlad goboleedka Jubbaland sababta rasmiga ah ee keentay inay ka soo baxaan laakiin ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamadii dhawaan halkaas dagaalka kula galay dagaalamayaasha shabaabku waxa uu ballan qaaday hal bil lacagtooda in ay si markaasi u heli doonaan oo waliba horumaris ah taasi oo dhiirin gelin karta ciidanka militariga siina kordhin karta howlgallada ka socda deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland